afar arrimood oo ka caawin kara in aad farxad iyo caafimaad ku noolaato. Waxaan halkan ku soo koobaynaa afar arrimood oo muhiim u ah noloshaada isla markaana ka caawin kara in aad ku noolaato nolol farxad leh. Inkastoo caafimaadka iyo cimriga dheer uu yahay mid uu Alle hayo, haddana waxaa jira waxyaabo qofka ka saacidi kara in uu caafimaad ku noolaado. Haddaba inta aanan u gudagelin muuqaalkeena, waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka leeg saarto si uu u gaaro saaxiibo badan. Khudaarta nafaqada leh. Cilmi baaris ay sameeyeen kooxo kala duwan ayaa muujinaysa in miisaankaaga oo aan kordhin, cunista cunto ay ku jirto khudaar oo aad badsato, sigaar oo aadan cabin, iyo inaadan isticmaalin khamriga ay kordhin karto rajada nolol caafimaad leh oo aad ku noolaato. Qofka oo aan wax cunin 8 saacadood maalintii ama uu toddobaadkii 2 maalin ka soomo ayaa la aaminsan yahay inay ka qayb qaadan karto caafimaadka nolosha. Jimicsiga. Murqaha oo gaba shaqadooda iyo jimicsi la'aanta waxaa ka dhasha cudurro ay ka mid yihiin wadna xanuunka, nooca labaad ee macaanka, iyo noocyada kala duwan ee kansarka. Haddii aad hesho jimicsi kugu filan, waxay taasi kaa caawinaysaa inaad ku noolaato nolol caafimaad leh. Jimicsiga aadka u badan wuxuu wax u dhimi karaa habka difaaca jirka, wuxuuna kordhin karaa khatarta ah in qofka uu ku dhici karo cudurrada la xiriira neefsiga. Waxa uu qofku u baahan yahay in 30 daqiiqo oo jimicsi ah uu qaato maalin kasta. Sare u qaadista heerka difaaca jirka. Si kasta oo aad u xoog badan tahay iyo si kasta oo aad wax u cunto, haddii difaaca jirkaaga uu hooseeyo, waxaad halis ugu jirtaa in uu kugu dhaco cudur kasta. Waxay bilaabataa hoos u dhaca difaaca jirka qofka sanadaha ugu horreeya ee qaangaarka, isla markaana mar walba oo qofka da'diisa ay korodho, waxa iska dhimaya difaaca jirka. Si sare loogu qaado difaaca jirka ee qofka, waa in uu isticmaalo nafaqooyin kale si loo dhaqaajiyo unugyada difaaca ee jirka sarena loogu qaado. Xoojinta unugyada jirka. Sanadkii 2009 saynisyahanadu waxay ogaadeen baaritaan ay ku sameeyeen dad muddo dheer si caafimaad leh u noolaa kadib markii la siiyay daawo la yiraahdo ribamycin, taasoo ilaalisa borotiinka jirka. Daawadan waxay caawisaa oo ay nidaamisaa sida unugyadu u helaan una habeeyaan nafaqooyinka. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Channelka subscribe saar si aad ula jaanqaado. Mahadsanid.